ma maqashay barnaamijkan cusub jacaylka gacan ku rimiska ah ee lacagta la isku siinayo waxa jira wadan ka mid ah dunida oo si la yaab leh iskugu dayaya inuu u kordhiyo tirada dadweynaha wadankaasi oo aad u yar Sahagu Busan oo ku taala Koonfur Korea mas'uuliyiinta deegaankaasi waxa ay qaateen go'aan ka oo ah hab cusub oo lagu kordhinayo dadka deegaanka waxa ay bixinayaan lacag si loogu dhiirigeliyo dadka deegaanka inay isticmaalaan oo isguursadaan Koonfurta Korea waxa ay la kulmaysaa dhibaato dhalasho yari ah oo aad u daran tanina waxa ay keentay in dadka deegaanku ay ka walwalaan mustaqbalka dalka xaaladda dhaqaale ee adag iyo waqtiga shaqo ee dheer ayaa sidoo kale waxa la leeyahay waxa ay saameyn ku leedahay go'aanada dadka ee ku saabsan guurka iyo qoysaska barnaamijku waxa uu bixinayaa lacag si loogu dhiirigeliyo lamaanaha hawlaha jacaylka iyo guurka waxaana jira shuruudo gaar ah oo looga baahan yahay inay buuxiyaan qaar ka mid ah shuruudaha waxa ka mid ah in lamaanaha ay gaar ah yihiin in ay ku nool yihiin Sahagu ama deegaankaas iyo in ay ka qayb galaan hawlaha iyo arrimaha bulshada barnaamijka waxa laga rajaynayaa in uu kordhiyo tirada dhalashada taasoo lagama maarmaan u ah mustaqbalka wadankan waxa sidoo kale la rajaynayaa in uu xoojiyo xiriirka bulsho ee dadka deegaanka waxa ay si kala duwan uga falceliyeen barnaamijkan qaar waxa ay u arkaanba in uu yahay hab hal abuur ah oo lagu xalinayo dhibaatada jirta ee dhalashada qaar kale waxa ay u arkaan barnaamij xumayn kara qiimaha guurka iyo jacaylka haddaba maxay kula tahay daawade barnaamijkan mise u aragtaa in uu yahay xal waara oo ay dadkaasi ku heli doonaan dad badan oo deegaankaasi ku soo biira